الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد waxaa maanta farxad weyn ii ah inaan ka mid noqdo kasoo qaybgalayaasha munaasabadda xuska sanad guurada xaruntan barbaarta iyo beeraha oo aaskeedii aan goobjoog u ahaa lana socday 10kii sano ee jirtay waxyaabaha ay qabanaysay. runtii waa bar ama xarun aqooneed guud ahaan beeraha siiba beeraha Soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsanahay aasaaskii markii loo dhigayay inaan kala talinay gudoomiyaha iyo dadka hawlaha xaruntan waday in aqoonta ay laba meel ka timaado, dadka aqoonyahanka iyo beeralayda. waxaa laga yaabaa dadka badankiisa inay aaminsan yihiin in beeralayda aqoon lahayn. aqoon weyn ay leeyihiin beeralayda oo runtii intaan jaamacadaha joognay aan aragnay theory aan ku dhigno jaamacadda aan kala kulannay beeralayda isla theory aan ardayda baraynay inay iyaga yaqaanaan. good example aan siinayaa tusaale ahaan marka uu xilligu pestiska ama waxyaabaha dulinada siiba cayayaanka uu badan yahay, annaga waxaan raanaa marka oo aan ka hadlayno seed science-ka waxaan raanaa waa in la kordhiyaa seed rate-ka, macnaha because crop walba waxaan naqaanaa wuxuu leeyahay seed rate per hectare. waxaan raanaa marka in seed rate-ka xilligaas ama marka ay jiraan insects qaar in la kordhiyo. fikraddii waxaan u tagnay beeralaydii, jaamacad ma galin, macahad kama soo bixin, laakiin waxay ku heleen waayo aragnimo. marka weydiinay barkee ama sababtee oo adigoo galley beeraya 30 ilaa 35 kiilo aad ugu beeraysaa, wuxuu ku leeyahay waxaan siinaa cayayaanka maadaama uu xilligan badan yahay wuxuu u cuno. waxaan beerta ku soo haray marka rate rasmiga ah 15 kaas wuxuu u daayay cayayaanka. waa fikrad la dhigo waay oo increase rate the seed rate of the per hectare. marka mana baran laakiin way aragnimo kale. that's why loo yiraahdo marka science-ka waa aqoon iyo way aragnimo la ururiyay. marka intaas waa khibrad ah oo runtii aan kala talinay muxuu ahaa xaruntan in beeralayda laftooda laga soo arooro. this was an example, laakiin waxyaabo badan ayaa jiro beeralayda aqoon gaar u leeyihiin. tusaale kale fatahaadaha badan hadda waxay ku badan yihiin gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. muddo waxaan ka shaqeynayay fatahaadaha gobolka Shabeellaha Dhexe. hay-ado badan xiri waay meelo badan oo biyo ka soo fatahay oo wax walba facilities walba la siiyey, dhaqaale walba la siiyey. markii dambe beeralayda faraha looga qaaday ama dadka tuulooyinka deganaa iyagaa xiray geedihii localka ay kasoo gureen jawaanib ciidda. marka yaan la isdhihin beeralayda intaas waa baraarujin aqoon ma laha, yaan la isdhihin intaas saasa uga baxaya. midda labaad waxaa la sheegay aayadda liilaafi Quraysh طعمه من جوع وآمنه من خوف. وعكروا للشيء من لا يملك قوته ولا يملك قراره. لو كلام قدر يعني وحل هذا عالمي أقول عالمي أقول هاي أنت هذا عافمات هذا كهذا أنت هذا كهذا مركا. waxaa fahmaysaa in beeraha laftooda aas u yihiin caafimaadka ummad kasta. maxaa jira hadda markaa fiirisid cudurrada la sheegayo dhan waa wax related la ah cuntada xiriirta la ah waay. marka aaday muhiim u tahay. tan kale aan ku darayo caalamiga waxaa la yiraahdaa dal hadduu burburayo wuxuu ka burburaa la yiraahdaa beeraha. dal hadduu horumarayn wuxuu ka horumaraa beeraha. hadda markaan kasoo qaadno Maraykanka iyo Canada iyo waa wadamo beereed waay. markaa hubka iyo waxaas aan ka tagno laakiin waa wadamo beeraha xoog saaray, wadamo beereed aad iyo aad ugu horeey. marka intaas waa iska baraarujinti waaye. war badan ma jiro, maxaa jiro hambaliyo iyo bogaadin keliya inaan meeshaan kasoo jeedino. waxaan rabay fursaddan inuu ka faa'iideysanayo in uu laba arrimood oo hadda adduunka ku soo biiray aan idinla wadaago.
كل دad badan oo wax akhriyo wax dhageystana oo inay ku jiraan waa rajaynaa midda hore waxa way adduunka waxa laga bixi rabaa hadda jaamacaadka waxay ka bixi rabaan siiba waxa bilaabay wadanka Shiinaha wadamo badan oo ku daydeen in la yiraahdo ninka ardayga ku qalin jibiyay thesis wax thesis la yiraahdo waa laga bixi rabaa adduunka wuxuu qofka ku qalin jibinayaa hal abuur engineering waxa lagu qalin jibinayaa qalab maxaa soo saartay kuleedihii kale waxa lagu qalin jibinayaa maxaa farsamo iyo theory cusub oo arkeed marka in la ogaado in cilmigu ahayn wax iska taagan uu yahay dynamic yahay adduunka laga baxay in buug la qoro laga tago oo qalin jibin hal abuur in adduunka wax lagu qaato taasi ku soo kordhay midda labaad oo iyadana taas la xiriirta waxa waaye nidaamka qadiimiga ah oo dadka lacagta lagu siin jirayna waa dhamaan rabaa oo ah physical appearance physical presence wax la yiraahdo inuu qofka laba saac xafiis soo galo shaahi sacmo hay'adii joogo 8 saac uu ka baxo bishii dhamaato mushaar uu yimaado systemkaasna adduunka waa ka horreeyay waxa wax lagu bixiyaa hadda oo dad wadamada qaar ay bilaabeen war maxaa soo kordhisay adiga ina xafiiska timaado mushaar lagu siiyo waa laga gudbay marka waxaan rabaa inaan adduunyada la socono oo connection aan yeelano waxyaabaha oo isbeddelka iyo horumarkana waxa keenay wax yiraahdo hal abuurku uu ka qiimo badan yahay aqoonta caadiga oo ka qiimo badan yahay waxa la yiraahdaa qof oo shahaadooyin haysto aan hal abuur lahayn waxa ka qiimo badan qof aan shahaadooyin haysanin hal abuur ambaliyaan leeyahay barbaarta iyo beeraha waxaan rajaynayaa 10 sano waxay soo qabteen inay dadka Soomaaliyeed aad uga faa'iideysan doonaan waxaan ku talinayaa ninkii beeraha dan kale inuu xog ka helo inuu ku xirnaado barbaarta beeraha. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.